soo dhawaada jaalayaal tiimka Beta Squad challenge cusub ayay soo sameeyeen. Challenge-gan waxaa loo yaqaanaa hide and seek. Way dhuuman doonaan waana la soo qaban doonaa. Haddaba yaa soo qabanaya. Ninkan waa askari hore oo ka tirsan ciidamada SWAT. Wuxuuna qayb ka yahay askarta soo qaban doonta tiimkan. Waxaana la shaqayn doona saaxiibkiisa oo ay tiimka idil wada yaqaanaan. Isagana waa askari hore oo ka soo dagaalamay Afghanistan. Horey isla labadan askari waxay muuqaal ka sameeyeen tiimkan. weliba isla tartankan waxaana markaas doqomaystay Chunks isagoo iska dhigaya inuusan tartanka ku jirin kadibna si fudud ayuu uga baxsaday. Haddaba sidoo u dhici doona challenge-gan tiimka Beta Squad waxay haystaan 10 daqiiqo ay isku qariyaan weliba saldhigan gudihiisa. Kadibna askarta waxaa la siin doonaa 35 daqiiqo si ay usoo qabqabtaan tiimka dhuuntay inta uusan imaan qalabkii ay ku baxsan lahaayeen. Qof walba oo tiimkan ka tirsan wuxuu haystaa 3 item oo ay ugu jiraan waxyaabo kala duwan kuwaas oo ka caawinaya inay baxsadaan. Aan dib ugu laabano muuqaalka. Nico wuxuu isku dayaa inuu askarta doqomay balse way ku fahmaan 10 daqiiqo ayaana u bilaabmay. Qof walba waxaa laga rabaa inuu isqariyo. Sharky intuu laabta geliyo askarta ayuu macsalaameeyaa balse waxay ugu hanjabaan inay soo qaban doonaan. Kenny wuxuu AJ u soo bandhigaa inay midoobaan oo ay isla socdaan. Wuxuuna ku dhahaa mar hore ayaan ugu dambeysay inaan game noocan ah wada shaqeyno. AJ ayaana ku dhahaya weligeena islama jirin game noocan ah. Kenny wuxuu ku dhahaa dib malaha maanta ayaan wada shaqeynaynaa. Kadib waxay u soo gudbeen gudaha saldhiga si ay u hubiyaan meelaha ugu macquulsan ee isku qarin karaan. Diyaarad meesha taalay ayayna dhammaan fuuleen. Kadibna waxay isku xujeysteen ninkii ugu dambeeyay ee ka dega ayaa guuleysanaya. Kenny wuxuu Chunks kula sharatamaa haddaa soo degaysid anaa bilaabaya wuuna dhaarinaya. Kadibna wuu degtaa Chunksna kama dambeyn. Intaynan sii wadin muuqaalka fadlan haddaad YouTube-ka iga daawanayso channelka subscribe noo saar. Haddaad TikTok-ga naga daawanaysana YouTube-keena soo booqo profile-ka TikTok-ga ayuu saaran yahay. Mahadsanid. Aan dib ugu laabana muuqaalkeena. 7 daqiiqo ayaa ka harsan waqtigii loo qabtay. Waxayna bilaabeen inay isqariyaan. Sharky wuxuu ku fikirayaa inuu dusha sare fuulo uuna halkaas isku qariyo. AJ iyo Kenny waxay soo raaceen diyaarad kale oo aan shaqeynayn waxayna iska dhigaan inay u shaqeynayso. Chunks 3 item ee uu haysto mid ka mid ah waa qudaar. Wuxuuna dhahaa maadaama aan diet ku jiro energy ayaan ka raadinayaa. Wuxuu helay containerkan oo uu qorshaystay inuu isku qariyo. Nico wuxuu arkay Sharky oo raba inuu meeshan ku dhunto. Wuxuu ku dhahaa caawinaad ayaan ka rabaa kaamirada ii soo qabo. AJ-na wuxuu isaga ciyaaraa diyaaradda. Chunks containerkii ayuu galay. Itemkii labaad ee uu haystayna waa qalab uu game ku ciyaari karo. Waqtiga 5 daqiiqo ayaa ka hartay. Nico wuxuu isku dayay inuu Sharky kaamirada u tuuro. Nasiib xumo Sharky wuu qabsan waayay dhulka ayayna ku dhacday mana shaqeynayso. Nico wuu ka soo tagay Sharky isagoo ka raali gelinaya inuu kaamiradiisa ka jabiyay. Wuxuuna wax ku duubayaa mobilkiisa maadaama kaamiradiisa ay jabtay. Wuxuu qorshaystay inuu cabbaar halkan ku sugnaado uuna kor kala socdo wax dhaxaya. Markii la gaaro waqtiga baxsashadana uu halkan ka baxsado. AJ iyo Kenny waqti badan oo ay iska lumiyeen kadib waxay hadda bilaabeen baadi goobka meeshay geli lahaayeen. Meel ayay arkeen. AJ ayaa ku dhahaya meeshan way baarayaan wayna qabanayaan. Waxay is arkeen Nico. Chunksna wuu soo baxay wayna u waceen si xanta looga dabageeyo. Nico wuxuu Chunks, AJ iyo Kenny u sheegaa in Sharky uu kaamirad la'aan yahay oo ay kaamirada ka jabtay. Muxuu isku duubayaa markay dhahaanna mobilkiisa ayuu ku dhahaa. Nico qaladka uu sameeyay ayaa ah hoolka uu Sharky isku qarinayay ayuu kaamiradii uga soo dhex tegay taas oo tixraac ku noqon karta Sharky. 3 daqiiqo oo kaliya ayaa markan harsan waxayna u kala carareen inay kala dhuuntaan. AJ wuxuu Kenny u sheegaa inuu ku fikirayo inay meel dheer fuulaan wuuna ku raacaa. AJ wuxuu gaari meel taagan ka soo qaataa boorsad nooca lacagaha lagu qaato. Nico wuxuu iska saaraa dharkii uu horey u watay. 3diisa itemna waxaa ka mid ah dharkan oo isaga dhan qarinaya qorshe fog ayuuna ka leeyahay. Chunks wuxuu dib ugu laabtay containerkii uu horey u qorshaystay. AJ iyo Kennyna waxay u diyaar garoobaan inay fuulaan dusha sare ee containerka. AJ cabaar ayay ku qaadataa inuu fuulo dusha sare ee containerka. 1 daqiiqo ayaa u harsan. Sharky wuxuu isku dayaa inuu daboolo meelaha laga arki karo. AJ ugu dambeyn wuxuu fuulay dusha sare balse Kenny ayaa ka caqli badiyay oo raacay jaranjarta. Isla markii ay fuuleen waxaa lagu dhawaaqaa in waqtiga uu dhamaaday. Askarta ayaana hooshooda qabsanaya. Chunks kuma kalsoona meeshan uu isku qariyay. Askartana baadigoob ayay wadaan. Nico iyo askarta derbi oo kaliya ayaa u dhaxeeya. Waxay yimaadeen containerkii ay dusha ka saarnaayeen AJ iyo Kenny balse kama shakin wayna isaga tageen. Askari kale ayaa soo fuulay container ku aadan kan AJ iyo Kenny dul jiifaan balse ma uusan arkin. Inta uu derbiga ku gargaraacay ayuu ka cararay. Markan 9 daqiiqo ayaa laga joogaa intay askarta baadigoobka wadaan. Sharky ilaa hadda cid u soo gashay ma laha. Wuxuu iska soo baxsaday 3diisii item mid ka mid ah. Wuxuuna noqday qalabkan la isku adaadiyo. AJ wuxuu dhahaa aan hubiyo. Marka uu banaanka fiiriyo waxaa dhankiisa soo eegaya mid ka mid ah askarta waxay go'aansadeen inay baaraan containerada. Taasna waxay fashil ku tahay Chunks maadaama uu isaga containerada ku dhex jiro. Wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay ee la qabto. Markay banaanka u soo saareen waxay isku dayeen inay caqliyeystaan iyagoo ku leh inaa inta ku dhuumatay waxaa noo soo sheegay Sharky qalabkii ayuu isku aadiyey. Waxay ku dhahaan manoo sheegay meesha uu Sharky ku sugan yahay. Chunksna wuxuu ku dhahaa ma ideenaysaan haddaan idin sheego. Maya ayay ku dhaheen isna wuu diiday inuu u sheego. Chunksna wuxuu sidaas ku noqday qofkii ugu
horeeyay ee la soo qabtay. Afar kale ayaana u harsan inay soo qabtaan. Nico banaanka ayuu iska wareegaya, wuxuuna arkay in loo soo dhow yahay, wuuna ka cararay. AJ wuxuu soo saaraa saddexda item ee la siiyey, waana chips, chocolate iyo qalab uu game ku ciyaari karo. Nico wuxuu ugu dambeyn kusoo dhuuntay qol, wuxuu wacdaa dad ku caawiya inuu baxsado. AJ iyo Kenny cabsi ma qabaan, chocolate ayayna iska cunayaan. Askarta waxay arkeen kaameradii Sharky. Nico qoladii uu wacday ayaa u yimi, si isku mid ah ayayna u labisteen. Waxaa soo degtay helicopter, taas oo la micnaa in qofkii raaca uu baxsan doono. Ninkii ugu horeeyay ay soo direen waa la qabtay, balse Nico ma ahayn, wayna isaga tageen. Kadib Nico iyo inta harsaneed hal mar ayay u wada ordeen dhanka helicopterka si uu Nico u baxsado, balse wuxuu noqday ninkii ugu horeeyay ay ugaarsadeen askarta. Markay wejiga ka fureenna waxay arkeen inuu Nico yahay, waxaana sidaas lagu soo qabtay qofkii labaad. Markan 3 qof oo kaliya ayaa u harsan. AJ iyo Kenny dhawaaqa helicopterka ayay maqleen, inay raacaan ayayna usoo degteen. Si la mid ah, Sharky wuxuu usoo diyaar garoobay inuu baxsado. Askari ayaa arkay, balse orodkiisa ayuu uga baxsaday. Diyaaradda ayuuna raacay, sidaas ayuuna ku noqday qofkii ugu horeeyay ee baxsada. Waxa kaliya ay hadda harsan waa AJ iyo Kenny. Waxay dareemeen inay askarta kusoo dhow yihiin. AJ-na wuxuu hubiyaa wax ku jira boorsada, waxayna qorsheynayaan in askarta ay ku dhahaan lacagtan qaado ee nafasax. Kenny waa la arkay, waana la qabtay. Inuu lacag ku mashquuliyo ayuu isku dayay, balse uma suuro gelin. AJ markuu damcay inuu dhanka kale ka baxo, saaxiibkiisa Kenny ayaa u wacay. Markuu imaadayna, askariga ayaa aaday dhanka AJ. Kenny ayaana baxsan gaaray. Markii Kenny la qabtayna, AJ ayaa baxsaday, sidaas ayuuna ku noqday qofkii labaad ee baxsaday. Kenny maadaama ay askarta ka tageen, inuu baxsado ayuu isku dayay, balse waa la qabtay. Wuxuuna naftiisa u huray saaxiibkiisa AJ. Chunks, Nico iyo Kenny nasiib uma yeelan inay baxsadaan. AJ iyo Sharky ayaana ku guulaystay baxsadkoodii. Fadlan haddii uu muuqaalkan ku cajibiyey, like saar. Haddii muuqaalkan uu like badan helo, isla tiimkan ayaan muuqaalo badan kasoo diyaarin doonaa insha Allah. Mahadsanid jaalle.